آخر واحد كبقينا كده احترادو شال قراية كده احترام كبقيا أدون كبر شال قراية كروكتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن حكت نقول سوا تمار دوان أركا ميديا برودكشن هذا هرتا ما عندنا ما بعرف مدة هذه حكت هني كرر كلا صدق تبع ما أنت ساقط إن كل ما أنت وحي والنوال ما نهي وأبو حتكسية يقول لك هي ترحمانه ما يقانا يستي ما شاء الله إن كل هرتا شنو كنا نقول مسؤول وين يدك بالسوسة دوية أصحابته وحدها استي سودو ولا channel دو واد ما ستوار ان انا سودو وينيا اديك دك ما سودو وينيا waxbaan igay ma soo dhaweynay waxa baratana dhawaa waxaan ku soo dhaweynay marweydayda ma soo dhaweynay ana soo dhaweynay maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa markii koowaad aan ka soo muuqdo channelka Ridwan R Media Production channelkan horta in badan ba saaxiibka meeyay kowdii waxa uu kamid yahay channelada aan igu qojirtay ma ogtahay ishaaf karasanaad leeyahay tolow maalin inna ma koran doona xalay farxadda iga dhacaysay hadama saxan salaadii subax ma saxaniyo markii la yiri channelkaas maanta ku cusubin war libaax weey ninkan la soo dhaweeyo waan ku soo dhawaay saaxiib channelkaaga aad baad ma saaxiib waxayna igu soo dhaweeyay maxaan ku soo dhaweynaya isku soo dhaweey horta ma ku soo dhaweey wada mikrofoonkeedu dhiisa ku dhaw hay'adu dhiisa ku dhaw bis yadu dhiisa weydii mikrofoonka gabadh baan u dhiibiyaa gabadh waa gabadha ag shaqal ma la dhaca xilliga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آديات بنو سلام يا رمان أصحابتك كحول رضوان آركا ميديا واحد لها اللي وإن أنت يريد وبحتوسية وإن يرو أن ولينا كقا قاعدين توتسن سبن كده لطي واحد لها اللي يسقوا هذا يسوي هر الله ما أرق إن يرو توتسن سبن كده لطي وسأسكروا هذا لسا ما أنت كوي إن كل ده بدن بارن دانا ما توتسن سبن كده شيء باي باي ما يقف مركو داوود ده شيء ما قرنيا استحتم شروع برنامجكooda سدحت من شو ويان بيسو ما dadka dhalashada garanaya واتهي maxay tahay channelka Ridwan R Media Production oo ku dhawahay waxaan leeyahay asxaabta qaaliga na soo dhaweeya oo markii ugu horeysay in ka soo muuqdo channelka Ridwan R waa wareejinaa mikrofoonka xaqlahan ka wareejinaya xaqla baaster baa la yiri xaqla baaster bila akhlaaq ma oranayaan laakiin Soomaalida tiraahda laakiin anu xaqla baaster kaliya oranaya baaster ka daa baaster ma ka deeyna waxaan college waxaan jeclay horta inaan su'aalayn weydiiyo noloshiina ku saabsan waa tahay kowde Cabdiraxmaan ma ka horeynay horta de waxay dambeysay ninkan gogoynaya college waxaan ku soo dhaweynayaa horta channelka Cabdiraxmaan Stay taariikhdiisa nololeedka xaw ku dhashay iyo intuu jiro hasireen waxaan ku leenahay da'daadii waxaageeyo imka doonaa 13 jir baan hayo waxa ya su'aalihii ugu fududaa baad weydiisay iyo dugsigaagii hoose waxaan malaynaa waxba dhigan bay madrasad yar lagu soo rabay bal noo sheeg way saaxiib aad baad maasan tahay waan ku dhawaay channelka walaalkayo ilaahayna ha ku sharfo ilaahay ha ku raameeyo saaxiib horta halkan ku dhashay waxa la dhahaa og degmada og waxay ka tirsan tahay gobolka Saraar Allah musta'an dugsigeygii hoose iyadaan ku soo qaatay dugsigeygii sare waxaan ku soo qaatay gobolka Burco gobolka Togdheer da'dayda weydiisay Soomaa da'dayduna saaxiib waxa weeyaan marka runta ka hadlo balliga wajigiisa da'du sheegay isku eega waliba khiyaarahan waan ka bixinaa da'daydu marka aanan weynayn saaxiib yarayna 20 jir baan saaxiib waayo waxaan dhashay 2000 commentiga stay inuu 20 qalmiyeen kale ya saasha ma ka jooga wax dambi ubaxay adiguna bal taariikh nololeedkaaga iyo xaqad ku dhalatay iyo dugsigaad ka baxday ilaahay ka qabto inaad loo inaad ku 998 dhaatay dadka u sheeg ha qarin ilaahay ka cabso almariga aamus horta anigu markii ugu horeysay waxaan ku dhashay Soomaalida qof kasto loo weydiiyay halka ku dhalatay wuxuu radaa Hargeysa ku dhashay meel heblan ku dhashay magaalo iska sheegtaan laakiin aanu baadiyan ku dhashay waliba ardaa goonde anigu baadiyahan ku dhashay waxaan ku soo koran ku soo barbaaray Hargeysa magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafada Axmed Guri baan ku soo barbaaray maxay ahayd toolay iskuulkana waxaan ka dhigtay Maxamed Moonge eedkii waan kaga baxay eedkii igu dambeysay waxbarasho maxay ahayd toolay sidoo kalena dee madrasad quraanna waa dhigan jiray madrasad quraanna waxa aan kaga baxay aniga oo suuratu cankabut maraya laakiin imka waxa insha Allah quraanka dib u bilowdid oo dib ugu noqotid
haddaan daadayda kuu sheego 20 jir buu sheegtay laakiin aanu 16 jir baan afar buu kaa weyn afar biiga anu mar kasta da'du sheegto anu 4 sano ka yarahay hadduu seerayo 4 sano hoos uga ah haddii suudiina 4 ilaa 20 sheekeer baan ka sheekeynaya maalin baa waxay gooni jirtay 2003 baan dhashay maaniga markaasaan suran jiray inaan 2003 dhalatay waa kaasoo waa qofka caadiga warkasay 2003 dhalatay markaasaan waxaan arkay kaarkeedii codaynta ma garanaysaa oo meel yaalaan arkay saasoo waan garan waayay ta okuyaali ma iska bixiyay oo wax maxaa wanu malaayadii okuyaali duu ka shaada 1998 oo qoran dhalashada waan naxayniyo 2 sano iga wintayba kowde marka arta ma taasaan ogaay 98 ya marka okaas 98 baxna khamsa waxay 22 jir baan noqon ana xuddo muraayada waxaad ii sheegtaa horta si asxaabtuna bal taariikhda inuu ogaato adigii ubax sid isku barateen si yaa xiriirka ku horeeyay maasha Allah karfogeedi horta inta waxa mar walba loo weydiiyay inta mar walba loo weydiiyay laakiin ka jawaabay aanu waa ay wixii badaadan garanayo 9 jir ma la weydiiyay hadda danto imka su'aasha labaad iyada ka dhig xiriirka iyada ku horeysay ma wax aqal kowde su'aasha labaad kale su'aasha kale weydiisay waxay maxaad ku barateen waxa isku baran hab walaalnimo markii hore walaalaan hay markii dambe walaalnimadii wax isku bedeeyon jacayl iyadaana ay sheegatay waxay arrinka waxaad ka leedahay bal ado nin weyn oo gadh iyo gafuurka intaa leegyahay oo maalin walba ya wax yaray waan jaraa gafuurka oo maalin walba qaar bay guud ka weyntaayoo kowde maalin walba bulshada been la hortaagan maalin kasta la weydiiyana xalaayada iga horreysay adigu su'aal baan ku weydiinaa ridaan nin ma yahay ninka jacaylka sheegta gabadhna tii xishoon jirta mata xagee lagu arkay gabadh jacayl sheegto tira ya dee kuwa imika andhaadkaada anu ma ogi laakiin ma ku dhaaran kareen anigu ugu horreey kala noo yara dhaaro ma dhaaranayo su'aal baa la weydiiyay hadduu su'aasha haddaad tirahdid eeg hadduu igu dhaho goormaad xidhiidhka bilowdeen yaase ku horreeyey dhaarona waa sax soo ma ridwaan laakiin hadduu ridwaan hadduu weydiiyo dhaaro dee waa u dhaaranaya caadi dee waa sax waad ku dhaaranaysaa wala halka dhaar ii weydi ducadaada ku dhaaran ku may kada ninka been buu sheegay beentiisa barnaamijka kalkaleyn ninka lama dhaaranaya may waxa fiican inaad iska sheegto tiraado anaa jacaylka ku horreeyay anaa sheegtay waa min jacayl sheegtay lama qariyanba kale horta marka xiriir sheegana waa xiriirku waa halkiisa waxa jirta oo noloshu way siyaafalantay mar waa jacayl mar waa guur yaa dee nolosha soo bandhiga bal yidhi niyow maadaama dee hawshan aan iskursanaba sax su'aasha maalinta subsiyada may waxaan weydiin aduu si hore ku weydiiyay waxa soo bandhigay isaga ay soo gaadho maysa ka hor dhici maayo moogta way wuu xajin laayay bal aduu ka jawaab taasoo kale bal taa yaa ka horreeyay nolosha iyadaa ka horreysay sababta igu horreysay anaan ku sheegaya xiriirka markaad saa igu soo bandhigatay ee ii sheegatay guurkuna ugu xigay cabdiraxmaan baa kole cabdiraxmaan dadka hore haddana waxbaan ku xigsinaya oo waxay sababihii kugu kalifay maxay inaad youtube-ka bilowdo amba inaad media soo gasho wallaahi horta sabab igu kaliftay inaan media soo galaa ma jirto media waan iska soo galay qofna hami ama taargad buu usoo galaa qofna dee waa qof iskaga xaraabaysta markii ugu horreysay an waxaan kusoo galay waxaan samayn jiray gabayadii waxaan samayn jiray kadibna maalmaha kamid a ayaa waxaan arkay ayaan kusoo biiray maanse yar baan iska soo tariyay hooyahaydoo ilaahay idinma tuse taasaan soo tariyey sidii ka dambeysana ilaahay markii media sidii baan ku bilaabay sidii baan kusoo dhex galay mid kamid ah gabayada nagu soo youtube-kana waan wallahi waan iska soo niyow youtube-kana amar ilaahe maan waan soo galay un youtube-kana kowdhe oo sida youtube-ka iskaga socdaan waxay iskaga soo gelgelin jiray horta youtube-ka saan kusoo geliya waxbaa idin sheegaya maalmaha kamid a waxaa dhacday sawiraan isu geegey بعدين يوتيوب كان سوقري فيديو شوت كسايس فيديو شو كسبي يوتيوب كان سوقري أدونك بريجا فرحدة يوتيوب كل احترام waxaan soo haystay inaan youtube ku dhex jirtay dadana waxaan iska soo baaraa
youtube galaan galaayo waxaan kusoo baara wal bas ka egtaa kulma maalmaan ka eega gabadhe sidii baa youtube-ka aan kusoo galay filmaantii aan matali jiran soo gelin jiray subscribe waa sii ku baxday kadibna sidii baa youtuber aan ku noqday waqti milay caayimada silada George imka qalaan baa silada media iska dhaxbax walaa waan isleeyahay kullu dee waan isleeyahay ka dhaxbaxo ismilihii aad ku sii fogaatid laakiin insha Allah waqtigaas ku sii jiidanayo inta macaankiisa may wallahi ima sii jiidanayo oo ka soo taagana ka sii baxba islaan ninkan Cabdiraxmaan baan ka baxaynay Soomaa watay masaashun bad weydiinaysaa saashii ma weydiinay laakiin waxa kala tahay inaad dhex taagnaanayso adoo gabadh xitaa waxay koorada baliis soo qabo kamarada ay ku toosay kamarada soo qala baraan youtube ko wallahi miisa waxaan iska dhamaanaa imka ganacsataan iska noqonaa bakhaaraan iska furana anaga iyo garas washiriyada xababtada furaysa youtube ka anigu waxaan wixii igu kalifin soo galo inaan caan noqdan doonay saaxib taas ay ku kaliftay intii ma haysata way maanta wada haysataa waxa wixii ku saddex dhiga muxuu ah no miro haate ilaa markaan idhaahdo youtube waxaan soo galay caan markaan caan noqdo inaan ka baxa tisaaxib imka ayaa kan bax kara mad ka baxdo aalubay wali meel bal baahan meeshii man gaadho wallahi marka meeshii halka aad gaadho markaan gaadhno baan anagu ka baxayna halkay weeyaan halka aad niyad ku haysay waxaan Cabdiraxmaan xasameysaa lacala iminka haddii aad kaba soo qaad dhimanayso qof youtuber sii kaxaysa hadii lagu raadiyo aad kaxaysan leh aan u baxnayn ha qof la daada kadib lagu raado iska sii kaxayso iska kaxaysa akhraan subscribe ta iska shaqaysana waayahay qof sii kaxaysa hadii lagu dhaw wax sii kaxaysan lahaa qof youtuber soo ma qof youtuber sii kaxaysada wana tu doonaa noqdo sayidka barakaysan iska diyaar garow saaxiib akhrinadina sayan kaxaysan lahaa waxay adna yaad sii jiidan lahayd haddii lagu raado qof youtuber kaxayso oo aan isaga hayn ana waxa sii jiidan lahaa taanu saamiisa galbana khalas ka xan lahaa xagga kaga tagay